qaybo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland kuma talo gobolada Awdal, Sool iyo Sanaag ayaa maanta iskaga baxay xarunta golaha wakiilada Somaliland oo ay ka socotay ka doodista xeerka doorashooyinka Somaliland taasoo wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyay nuqullo ka mid ah xeerkaasi. Intaasi kadib xildhibaanada uu afaafka hore ee aqalka baarlamaanka kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay gabi ahaanba qaadaceen xeerka doorashooyinka Somaliland oo hor yaalla golahaasi. halkan waxa fadhiya xildhibaanadii golaha wakiilada ee ahaa darafyada bari iyo galbeed ayaa ku dhan halkan. ujeeddada halkan la soo fadhiisay waxa weeye maanta in aynu muujinno lana ogaado inaannu annagu xeerka doodiisu socoto ee golaha la soo dhigay aannu shaqo ku lahayn annagu. xeerkaasi doodiisa iyo wixii ka soo baxa mid walba annagu waxa weeyaan wax alla wax shaqo ku leen haba yaraatee ma jirto, waanu qaadacnay doodiisaasi. marka waxa weeye waxaan kaloon sheegayaa inaynu berri haddii la yidhaahdo aanu qaban doonno shir jiraadoo weyn oo xildhibaanada dhammaan labada beelaha darafyadoo dhan ay u dhan yihiin. taas ayaannu iyadoo faahfaahsanna idigu sheegi doonnaa haddii la yidhaahdo. xeerka doorashada ee doodiisu socoto dee waa jiirsiis, waa laisu garab dhiibinayaa. annagu dibaddaanu ummaddu ha ogaato dibaddaannu ka joognaa, ma gelayno. mar haddii la isjiirsiinayo oo aan la isu joojinayn waa ka soo baxnay. waxaanan la socodsiinaynaa annagoo ah xildhibaanadii beelaha darafyada ee Somaliland. wax dood lagu sheegayo ayaa ka socota golaha, laakiin annagu bannaanka ayaannu ka joognaa. cidda danaynaysa Somaliland ama xukuumad ha ahaato ama cid kale ha ahaatee maanta waxay u baahan tahay in laga badbaadiyo musabixi iyo xukuumaddiisa Somaliland jiritaankeeda. haddii aan sidaa la yeelinna way kala soconaysaa oo way kala tegaysaa. xeerarka qafalmajaxa ah oo xeerar golayaasha soo maray oo ansaxay oo shaqo galay haddana dib la isugu soo gurayo oo lala wareegay xilkii golayaasha sharci dejinta ood arkaysaan maxkamaddii oo ay baaba'een kala xadayntii hay-adaha dawliga ah. waxaa ka socda maaha wax quman iyo wax la qiyaasi karo midna. Maxamed Jookar, telefishinka Home Cable, Hargeysa. magacaygu waa Suldaan, magacaygu waa Seeraar. isku si ayaan u hadalaa, isku sina waan u labisanaa, isku midna waanu nahay. aniguse waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. war maahayn run miya? waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash. bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. caadi ma aha. maxaad mar hore iigu sheegi weyday? fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Somaliland amaba bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya. Samtel, shirkadda dadweynaha.